الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغرر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون الكرام أحييكم بتحية الإسلام فسلام الله ورحمته وبركاته عليكم. سلام بعد قد إلى محدث كله إنه نمعوين فربضا وأن لسوكو بكرين نمعوين كاسو أيوها الرئيس نعمة الإيجاد أيونا أيوينتهاي نعمة الإسلام والإيمان. إلهي مرك نمعوين وكوغلو نمعوين كإلهي وكوغلو يهداد إلهي ومهد نغديد وحاكا لازم إياه نعمدي هراء إلهي كسيا إلهي كوشوكتو وحاكا كان لازم إياه إنه إلهي كوكريو. نبي وحيري صلى الله عليه وسلم إن لله أوابد فقيدوها بالحمد. إلهي وحوليه حيابا جوغو فكان يعرريا دورتوكتو سيبو جوكتو وكلا دورتوكتو مركو قف كصبحا أو كصر بعده موقيسا مركا يعرتي عرريسا ساسو كلا إلهي وحوليه وحيابا عرريا فكانيا وحيابها حرا محاو كحري كدانا حرقو نغنيا فقيدوها بالحمد ما هنق إلهي أمها النغضان نمعوين وحيابها بنجوغو فكانيا كحرتا إلهينا وكورانك نقول لي لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه آتي شكر ذان والله وإذ كردنا يا وحاك لازمة يا شكر جيني نعمتي أهراها ستين إلا ديسي حو كرديو ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا كفر ذان وقروا وإذان هذا عذاب كي وادرني هاي أو قالوي وحماني من أيالين إذنكم باسلوقوا يي انت هذا بس وكتبه كو حيرادان كل مقام له مقال مالك استوقفك وجوه وراه الى الهي ما دام انو جوغنا مانتا حفلات على مسار ما دام انو جوغنو حفلات دورشو waxa laga marmaan ah wilaayada iyo waxyaabaha la xiriira in wax laga taabto xafladda maanta aanu joogno waxay ka mid tahay min alwilaayad bay ka mid tahay waxay ka mid tahay xilalkay ka mid tahay xilkuna ahmiyad buu leeyahay nabigu sallallahu alayhi wasallam aad uga hadlay muslimiintan uu ku bariyay waxa jira wax saaran qofka la doortay waxa jira wax saaran ummadii waxa way dooratay marka la helo labada mas'uuliyad haday hagaagaan mujtamac wuxuu soo saaray natiijada ka soo baxaysa waxay noqonaysaa waxa soo baxaya mujtamac hagaagsan hadii qofka la doortay xilkiisii uu guto kuwa wax doortayna xilkooda ay gutaan natiijada soo baxaysa waxay noqonaysaa mujtamac hagaagsan guul iyo wanaag baa la gaaraya hadii mid kamid ah oo xilkiisu gudan waayo kan kalena si fiican u guto waa la dhutinaya hadii labada la gudan waayana meesha waxa ka soo baxaysa faayadaro lagooya ka soo baxaysa لأجل ذلك سيدا درادت وحالة مرمانا إننا نسكو حسوسنا إننا نسكو براروجنا أهمية إلى الله ما أنت منصبت عن شوقنا ما أنت وحلي هذا ماشي عن شوقنا هوش الوقت تي للرباه
inay sii socoto ahmiyadda ay ku fadhido maadaama laga maarmaan in la xusuusiyo ummadda waxa qofka saaran inuu og yahay waa muhim qof kastaba ha ahaadee kan waxa weeye xilka loo dhiibay qofka xilka loo dhiibay oo mas-uulka ah iyo qofka waxa weeye mas-uul waxa weeye xilka loo hayaba labadaba waxa saaran in la isku baraarujiyo waa laga maarmaan waxay yidhahdaan afdalu lcilmi cilmu lxaal cilmi waxaa u fadli badan cilmi xaalka wa afdalu lxifdi xifdu lxaal xifdina waxaa u fadli badan marka xaaladda la joogo ilaalin la ilaaliyo haddii aan ku hormarno waxaa la yidhahdo waxyaabaha saaran dadka xilka saaran yahay nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam oo ahaa mas-uulkii ummaddan oo dhan mas-uulka ka ahaa axadkii ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisii u soo dhiibay diintiisii ilaahay subxaanahu wa tacaala axadka mas-uulka uga soo dhigay ilaahay uu ahaa baa ilaahay subxaanahu wa tacaala kala hadli jiray inuu waxa la yidhaahdo cadaalad sameeyo waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala kala hadli jiray dhibrin uu dhibriyo intiiba qof kasta oo xil qabta waa u yaallaan qof kasta oo xil qabta waa u yaallaan laba qof qofkii mas-uul looga dhigo ka badan iska dhaafe laba qof keliya mas-uuliyaddaas waa u taalla waxaa laga maarmaan oo waajib ku ah qofkii muslimiinta xil u qabtaa inuu muslimiintii waxa u dhibriyo haddii uu dhibriyo muxuu helayaa nabi maxamed sala allahu alayh wasalam baa u duceeyey hadduu dhibrin waayana waxaa ka soo baxaysa nabi maxamed baa habaaray sala allahu alayh wasalam caaisha radia allahu canha waxay warinaysaa xadiid ay leedahay rasuulka sala allahu alayh wasalam baan ka maqlay gurigayga isagoo jooga rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam man waliya min amri ummatii shay-a qofkii ummadooda shay ka mida tawaliya oo markaasi u dhibriya farafaqa calayhim korkooda u dhibriya oo waxa weeye u wanaag sameeya shay u qabta oo markaasi ku dhibane fashquq calayhi ilaahu asaga ku dhibu nabiga markaa sala allahu alayh wasalam marka qofka kow waxaa laga rabaa dhibrin mas-uulka waxaa laga rabaa kow marka ugu horraysa dhibrin uu muraajada u dhibriyo xadiidkaasi waxaa soo saaray imaamu muslim wuxuu ka mid yahay imaamu muslim maraajicda waaweyn ee islaamka loola laabto axaadiidta markii laga hadlayo muslim iyo bukhaari waxay isku waafaqaan baa waxaa la yidhahdaa xagga ugu horreeya sixada waxaa ku xiga bukhaari wuxuu la kali noqdo waxaa ku xiga muslim wuxuu la kali noqdo waxaa marka darajadii saddexaad buu ku jira xadiidkan waxaa laga rabaa qofkii waaliga ahaa qofkii xilka hayay mas-uulka ahaa waxaa laga rabaa ummad inuu u naseexeeya laga rabaa nabi maxamed sala allahu alayh wasalam xadiidku warinayo abi yacla macqil ibnu yasaar saxaabii loohan jiray radia allahu tacaala canhu ardaah wuxuu leeyahay nabigu sala allahu alayh wasalam addoon ma jiro ilaahay subxaanahu wa tacaala uu madax oga dhigo racyad oo dhimanaya maalintuu dhimanayo isagoo dadkaasi aan u naseexayna bal qishigii ku sameeyey nabigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam ilaa xarama allahu calayhi aljanna laakiin markuu xilkaa iyo mas-uuliyadda guto miisaanka xasanaadkiisi bay u fuulaysaa xilkaasi mas-uuliyadda markuu naseexo ku guto miisaanka xasanaadkiisi bay ku biiraysaa waxaa ka mid ah waxyaabaha xilka saaran inuu noqdo miftaax lilkhayr quflan lishar khayrka inuu u noqdo fure sharkana inuu u noqdo waxaa la yidhahdo xire waxaa jira ummad ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nicmooyin siiyey nicmooyinka ilaahay wuxuu ku siiyey ummadda ayay waxay u hayaan maslaxadda khayrkay ummadda u furaan waxay ka shaqeeyaan islaax bayna annaas ummadda dhexdooda si loo subin lahaa waxay ummadda u jideeyaan shuruuc waafaqaysa ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabiga sala allahu alayh wasalam laga maarmo marka waxaa qodobkaa inay ku sifoobaan si ay ugu guulaystaan arrintaasi nabigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam qofkii ummadda u jideeya waddo wanaagsan wuxuu leeyahay isaga ayada ajarkeedi buu leeyahy cid allaala ciddii ku camalfasho ajarkoodina waa leeyahy waa laba arrimooda labadoo muhima wuxuu leeyahay isaga miduu shaqaystay ajarkeedii iyo cid allaala ciddii kaga dambayso oo ku camalfasha waxaa kaloo muhim ah wax allaala wuxuu mujtamacaasi waxaa la yidhaahdo dhibaato ku keenaya karaankiisa inuu ka qabto sidiisa qof waxaa la saaray markii wax loo diro waxaa la saaray karaankiisa waxaa weye markii wax laga hortegayana ama xumaanane karaankiisa inti ka ah buu ka hortegayaa qof karaankiisa inti ah buu ka hortegayaa waxyaal waxaan ku daraya haddii alla yidhaahdo haddana maxaa ummadda saaran racyadda dadkii madaxda loo ah mas-uulka loo ahaa maxaa saaran waxaa saaran kow adeecitaan ay adeecaan baa saaran ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu nagu leeyahay ayadan ku furanaynay yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu allaha wa adiicu rasuula wa uli lamri minkum kuwa ilaahay nabi rumeeyo dadkii iimaanka laga helayow ilaahay adeeca rasuulkana adeeca waxaa kaloo adeecdaan dadka amarka u saaxiibka oo idinkan ka mid ah dadka talada u saaxiibka ah dadka waxa weye mas-uuliyadda idin hayana ka dambeeya oo adeeca
nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxyaabaha ummadda uu kula ballami jiray waxaa ka mid ahaa wax dardaarankii nabiga ugu dambeeyey wuxuu ahaa dardaarankii nabiga gabagabada u ahaa wuxuu ahaa usiikum bitaqwa allah waasamci waaaca waxaan idin farayaa nabigu sala allahu calayhi wasalam waxaan idin farayaa kow ilaahay cabsidii oo ku soo kooban wixii ilaahay ku amray awooddaada intaa kala imow wixii ilaahay kaa reebana haddana ma kuma jira iska wadaa qodobka labaad nabigu wuxuu ahaa sala alla alay slam waasamci ismaqal qodobka ugu dambeeyna wuxuu ahaa inta is dhegaysataan haddana in la yidhaahdo waa ku maqlaynay waa ku caasinay sidii yahuud u dhaqmi jireen lama rabo in la yidhahdo haddana waadacna samicnaa waadacna nabigu sala alla alay wasalam dardaarankiisii saddexda qodob baa ugu dambaysay nabigu sala alla alay slam maalin khudba dheer jeediyey oo asxaabtu weliba ay codsadeen rasuul allahu maanta dardaarankaada kama damaystaana sii wuxuu nabigu ku yidhi sala allahu calayh wasalam ismacuu waadiicuu calaykum bitaqwa allah waasamci waadaaca marka waxa weeye laga marmaan waxaa ismaqal iyo sadeecis goormaa marka wax maqlaysaa maalintii adiga wax lagu qabto miyaa may mar walbaba maalintaa faraxsan tahay miyaa as leedahay maanta alalahay dhinacaaga waa roon tahay miyaa may mar walbaba nabigu sala allahu alay wasalam wuxuu calayka asamca waadaac fii cusrika wa yusrika wamanshadika wa makray waxaa korkaaga saaran ismaqal iyo sadeecis markii adiga culaysku saaran yahay iyo markay kuu fududahay mar walbaba markaad nashaadaysan tahay